haddii ku bilaawno dalka Zambia madaxweynihii hore ee dalkaasi oo kamid ahaa hogaamiyayaashii Afrika markii ay gumaysiga ka xorooday ayaa geeriyooday waxa da'diisu ay ahayd 97 jir. Kenneth Kaunda waxa uu Zambia ku hogaamiyay madax banaani oo ay ka qaadatay dalka Britain 1964. Farxaan Maxamed Jamaale ayaa dib u eegayay noloshiisii. wuxuu ahaa aabbihii xorriyadda Zambia waxaana loo arkayay awooddii maskaxeed ee Afrika. laakiin Kenneth Kaunda markii uu xafiiska ka tagay dhaqaalihii waddankiisa waa uu horay. xilligii xorriyadda la qaatay 1964 Kenneth Kaunda waxa uu noqday madaxweynihii Zambia isagoo ahaa hogaamiyihii xisbigii xorriyadoonka. wuxuu ahaa nin kirishtaannimadu ay ku weyn tahay oo u ololeyn jiray isbeddel aan gacan ka hadal ku iman. saasoo ay tahay wuxuu u ogolaaday waddankiisa in jabhado ay ka howlgalaan oo ay kala soo dagaalamaan Rhodesia, Mozambique iyo Koonfur Afrika. inkasta oo Kenneth Kaunda uu la ciyaaray Margaret Thatcher, laakiin gebi ahaan ma aysan ogolayn dalabkiisii ahaa in cunaqabatayn la saaro Koonfur Afrika iyo nidaamkii midab kala sooca. isagoo oo booqanaya Zambia ayaa xogeeyaheedii arrimaha dibadda Jeffrey Howe qaabkan loola hadlay. sidii qof bini aadam ah oo innagana la mid ah waan kuu soo dhawaynaynaa mudane Jeffrey, laakiin sida wakiil dawladiisa ka socda kuguma soo dhawaynayno Afrikada Koonfureed. laakiin 1970yadii iyo 80yadii Zambia aad ayay daciif u ahayd waxaana ay ku tiirsanayd alaabta looga keeno Koonfur Afrika. way ku adkayd inay hirgeliso cunaqabataynta oo Kenneth Kaunda qudhiisa uu taageerayay. qiimihii maarta adduunka oo hoos u dhac ku yimid dhibaatadii shidaalka 70yadii musuqmaasuq iyo maamul xumo ayaa curyaamiyay dhaqaalihii Zambia. madaxweyne Kaunda waxa markiiba ku soo baxay mucaarad isagoo sameeyay dal hal xisbi leh wuxuuna sii noqonayay nin dadka cadaadiya. markii dabaysha isbeddelka ay dhex jibaaxday Afrika, Kenneth Kaunda waxa uu noqday nin shacabkiisa aan ka warhayn. waxaa dhacay banaanbaxyo ka soo horjeeda dawladdiisa oo ay keeneen qiimihii cuntada iyo alaabtii daruuriga ahayd oo cirka isku shareeray. taasina waxay ku qasabtay inuu ogolaado isbeddel dimuqraadi ah. ugu dambayntii waxaa doorasho uga adkaaday Frederick Chiluba 1991. laakiin saamayntiisu ay sii socotay waxaana ay keentay in loo xiro khiyaano qaran. maamulkii cusba ayaa ka joojiyay dacwadihii loo haystay markii beesha caalamku ay cadaadisay. aaskii Nelson Mandela, Kenneth Kaunda waxa uu markii ugu dambaysay ka soo muuqday masrax caalami ah isagoo inta ushiisii iska dhigay masraxa ku soo orday oo ku soo booday. God Almighty continue to bless him and all others like him who have come to know the importance of what wuxuu hadlayay in ka badan intii loogu talagalay. Fare thee well. Amen. wuxuu se ahaa Kenneth Kaundihii la yaqaanay. inkasta oo uu lahaa khaladaad badan, taariikhdu waxay u xusi doontaa Kenneth Kaunda inuu ka hortagay in dalkiisu kala go'o iyo inuu fuliyo halku dhegii xisbigiisa ee ahaa Zambia oo mid ah oo qaran kaliya.